walaalayaalo dhulkeena aneefsane dhisay akula dhisay awala dhisay dhisa dhulka dhisa walaalayaalo dhulkeena aneefsane dhisay akula dhisay awala dhisay dhisa dhulka dhisa waloo dhinto lagu dhaawacme waloo dhinto lagu dhaawacme walaalayaalo dhulkeena aneefsane dhisay akula dhisay awada dhisay dhisa dhulka dhisa walaalayaalo dhulkeena aneefsane dhisay akula dhisay awada dhisa dhulka dhisa marka faahfaahiyo mashruucan dawlad goboleedka iyo dawladda federaalka waa hordhac laakiin waxaan leenahay bulshada maanta waa ku filan tahay wix loo qabtay waa loo qabtay waa ku filan tahay ma dhahayno waa hordhac aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa wasaaradda arrimaha gudaha ee dawlad goboleedka iyo wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dhammaan marka la rabo maanta in la dhagax dhigo oo la dhiso garsoorka shaqaynaya sidii loo xoojin lahaa way meesha labaad ee community centerka ah ama kulanka bulshadu meesha hadda ay isugu imaanayso waa meeshii degmadan ay uga tashan lahayd waxa masiirkeeda maamulka kula xisaabtami lahayd baahidooda ay uga hadli lahaayeen wixii khilaafaad iyo wixii dadka dhexdooda ay ku xallisan lahaayeen way waa howl weyn asaguna waa baahida labaad ee muhiimka ah way waxa kale oo ku sii xiga solar light-ki oo magaalada dhexdeeda la marinayo kuwii hore loo mariyay iyo kan oo meelaha hadda mashruucan laga dhisay iyo magaalada insha Allah isku xiri doona amniga ka qayb qaadanaya ganacsiga ka qayb qaadanaya bilicda magaalada intaba ka qayb qaadanaya waxaan aad ugu mahadinaynaa dhammaan dadkii ka wada qayb qaatay oo ugu horreeyay dawladda dhexe iyo maamul goboleedka ilaa heer gobol ilaa heer degmo iyo dhammaan qaybihii bulshada iyo dadkii hay'adaha ay ka qayb qaatay intaba insha Allah waxaan leenahay dadaalkiina waa aragnay salaan kadib waxaan ku baroorinaa kaliya oo darmayaa in mashruucyada la fulinayo saddex goob ka wadana maxkamadda iyo howlka shirka bulshada iyo solarka inay ogaadaan ay ka timid baahidii kana timid qorshaha qaranka ee Soomaaliyeed iyadoo fulinayo labada dawladood goboleedka iyo dawladda federaalka ana ku kaliya wasaaradda arrimaha gudaha federaalka waxa la yahay dadka bulshada deegaanka inay ilaashadaan iyo istaan ay leeyihiin aysan ka dhigin wax dadka hay'ad kale iyo xafliyeen laakiin ay tahay ka timid ayagu leeyihiin mashaariicdan waxay ka mid yihiin mashaariicda xasilinta ama la yiraahdo mashaariicda dib u kabashada bulshada ayay ka mid yihiin waxay soo bilowdeen qorshahoodu sanadkii hore bulshada loo yimid waa la weydiiyay baahiyahooda mashaariic badan bay sheegteen oo baahiye ah laakiin intii maaragtay aan hadda ka soo jawaabnay ugu horeysay ayay mataqaanaa ka mid walaalayaalo dhulkeena aneefsane dhisay akula dhisay awada dhisay dhisa dhulka dhisa